nabadgelyo korkaaga ha ahaato ku soo dhawow barashada xisaabta magacaygu daawade waa Shiina Geestir waxaan caawa videogan gaaban ku baranaynaa cashirkeeni afaraad ee xisaabta jajabta taasoo ciwaankeedu yahay subtracting fractions kala jaridda jajabta markii la kala jarayo xisaabta jajabta waxaa loo fiiriyaa hooseeyahooda waxaa jira qaar hooseeye isku mid ah leh iyo qaar aan hooseeyahoodu isku mid ahayn daawade waxaan ku horeynaynaa jajab hooseeye isku mid ah leh waxaana la yiraahdaa halkan kala jar jajabyada hooskaaga muuqda waxaa halkan nooga muuqda 3 tusaale oo ah jajabyo hooseeyahoodu isku mid yihiin sidee marka loo kala jaraa jajabyada ay hooseeyahoodu isku mid ka yihiin waxaan dhahaynaa marka hore waxaan kala jaraynaa sareeyaasha jajabta 4 laga jaray 2 waxaan ognahay inay la mid tahay 2 kadib ayaa waxaan soo qaadanaynaa hooseeyaha mid ka mid ah maadaama ay yihiin isku mid marka 6 ayaan soo qaadanaynaa 4 lixaad laga jaray 2 lixaad waxay la mid tahay 2 lixaad sida ayaa waxaan ku soo helnay jawaabtii waxaan u guda galaynaa tusaalaha labaad 8 toddobaad laga jaray 6 toddobaad waa imisa waxaan kala jaraynaa sareeyaasha kadibna waxaan soo qaadanaynaa hooseeyaha mid ka mid ah 8 laga jaray 7 8 laga jaray 6 waa 2 haye hooseeyaashana mid ka mid ah ayaan soo qaadanaynaa waxaan dhahaynaa markaa 8 toddobaad laga jaray 6 toddobaad waxay la mid tahay 2 toddobaad waxaan u guda galaynaa tusaalaha ugu dambeeya ee saddexaad 3 afraad laga jaray 1 afraad waa imisa 3 afraad laga jaray 1 afraad waxay la mid tahay baan dhahaynaa anagoo kala jarna sareeyaasha marka hore 3 laga jaray 1 waa 2 kadibna waxaan soo qaadanaynaa hooseeyaasha maadaama isku eg yihiin mid ka mid ah marka 3 afraad laga jaray 1 afraad waxay la mid tahay 2 afraad sidaas ayaa waxa looga shaqeeyaa jajabta hooseeyahoodu isku mid ka yihiin markii aad kala jaraysid waxaan u guda galaynaa tusaalayaasha jajab hooseeye kala duwan leh waxaana la yiraahday kala jara jajabyada hoos kaaga muuqda waxaa halkan nooga muuqda 3 tusaale oo ah jajabyo hooseeyahoodu kala duwan yihiin sidee looga shaqeeyaa markii la kala jarayo jajabyo hooseeye kala duwan leh way ka duwan tahay bataatanba jajabyada hooseeyahoodu isku mid ka yihiin waxaan dhahaynaa marka koobaad waxaan isku dhufanaynaa hooseeyaasha 4 lagu dhuftay 6 waxa weeyaan 24 kadibna waxaan isku dhufanaynaa si isweydaaris ah hooseeyaha jajabtan iyo sareeyaha jajabtan 4 lagu dhuftay 4 waxaan dhahaynaa waa 16 kadibna waxaan dhahaynaa laga jaray hay 2 lagu dhuftay 6 sareeyaha jajabtan iyo hooseeyaha jajabtan oo la isku dhuftay 2 lagu dhuftay 6 waa imisa waa 12 kadib ayaan kala jaraynaa hooseeyahana aan soo qaadanaynaa 16 laga jaray 12 waxa weeyaan waa 4 kadibna waxaan soo qaadanaynaa hooseeyaha oo waa 24 marka 4 lixaad laga jaray 2 afraad waxay la mid tahay 4 24 haddaa rabtid markaa waad sii yareyn kartaa oo waxaad u qaybin kartaa midiiba 2 4 loo qaybi 2 waa 2 4 20 loo qaybi 2 waa 12 waxaa la yiraahdaa xisaabta markay saan tahay 4 4 labaatanaad
waxay la mid tahay 2/12 waxaan soo baranay cashir dhahayay equivalent fraction oo luqadeena hooyo lagu yiraahdo jajab isku dhigma marka 4/24 waxay u dhigantaa 2/12 marka 4/6 laga jaray 2/4 waxay la mid tahay oo kale 2/12 saasna waad u sii yareysan kartaa haddaa halka ku deystana waa ku sax haddaad sii yareysatidna waa ku sax waxaan u gudagalaynaa tusaalaheena labaad 5/3 laga jaray 3/2 sidoo kale waxaan dhahaynaa waxay la mid tahay waxaan isku dhufanaynaa hooseeya 3 lagu dhuftay 2 waa 6 kadibna waxaan dhahaynaa jajabtan sareeyaheeda ayaa waxaan ku dhufanaynaa jajabtan hooseeyaheeda 5 lagu dhuftay 2 waa 10 oo laga jaray baa dhii marka haye jajabtan sareeyaheeda oo lagu dhuftay jajabtan hooseeyaheeda waa 3 lagu dhuftay 3 waa 9 kadib ayaan kala jaraynaa 9 laga jaray 10 laga jaray 9 waxa weeyaan 1 6dan waan soo qaadanaynaa marka 5/3 laga jaray 3/2 waxay la mid tahay 1/6 sidaas ayaan waxaan ku soo helnay jawaabtii waxaan u gudagalaynaa tusaalaheena ugu dambeeya waxaan dhahnay markii la xalinayo jajabyada hooseeyahoodu kala duwan yihiin markii la kala jarayo waxaan isku dhufanaynaa marka hore hooseeyaasha 22 lagu dhuftay 17 waa imisa 22 lagu dhuftay 17 waa 374 kadibna waxaan isku dhufanaynaa jajabtan sareeyaheeda iyo jajabtan hooseeyaheeda 16 lagu dhuftay 17 lagu dhuftay 17 waxa weeyaan 272 laga jaray baa dhii marka haddana jajabtan sareeyaheeda iyo jajabtan hooseeyaheedana waan isku dhufanaynaa 22 lagu dhuftay 12 lagu dhuftay 12 waa 264 kadib ayaan xalinaynaa sareeyaasha ayaan kala jaraynaa kadibna waxaan soo qaadanaynaa hooseeyaha 272 laga jaray 264 waa imisa 274 waxaan jeedaa 272 laga jaray 264 waa 8 hooseeyuhuna waa 374 sidaas darteed 16 22 laga jaray 12 17 waxay la mid tahay 8,374 waxaan rajeynayaa daawade inuu videogan gaaban ka anfacay sida loo kala jaro jajabta hooseeyahoodu isku midka yahay iyo jajabta hooseeyahoodu kala duwan yahay waxaan rajeynayaa inaan ku kulmi doono video kale oo la mid ah inta aan kulmi doono waxaan idin dhaafayaa fi amaanillah